dhacday ninkii taliyaha ciidanka qaranku inaan wax yar ka idhaahdo wax laga yidhaahdaba garan maynee waa afkala qaad bay maraysa horta inaan wax ka naano horta waxaan guud ahaan arrintaa dhacday ay u ekayd aan odhanayaa waa masiibo qararta waxaa dhacay xeer baalko waa masiibo qaran wixii dhacay ayay ahayd ushan waxa uu shalay wax ka sheegay oo mowqifkiisu u daaranaa hadalkiisii isagoo taliyii ciidamada qaranka 16 sano in ka badan ahaa taliyaha ciidanka qaranka waxa uu wax ka sheegay ciidamadii qaranka ee goostay iyo kuwa joogay midna wax ma reebin kuwa tagay wuxuu yidhi haddii ala ku raayo waxa may taray loona baahnay hanaga tagay kuwa kale ay kuwaasoo kale ahayna hanaga tagay wiil arrintaas waxayd masiibo wixii ku harsanaa qaranka wax in badan baanu annagu ka xishoonnay wax badan oo ka jira ciidamada qaranka annagoo u tirayna qarannimada annagoo u tirayna ciidamada qaranka iyo isku duubnidooda inta isku duuban karaan iyadoo aan ognayn wax badan ay ka jireen kii aanu waxa uu ku jiray aanu uga turaynay ee isagu maalayay ee 16 sano haystay ee ku qabay ayaa isaga afkiisii shal ku kala diray ciidamada qaranka iyo qarankiiba waa nasiib daro shacabka Soomaaliland arrintaa dhacday waanu ka tacsiyeena waxaan leeyahay ciidamada qaranka waa kuwii intaa soo sano bacjiifka u fadhiyay danta guud qaranka iyagoo caruurahoodii haleeli waayay inay iskuulo dirtaan ay kala baadeen xaasiskoodii mana geeyin inuu waxa kula hadlaa markii shalay arrintaas dhacdayna shacabkii iyo cid kastaba wax ku noqotay afkala qaad waxa la islahaa oo dadku islahaayeen madaxweynuhu waxbuu ka odhanama tallaabo ka qaaday laakiinse markay ilaa imika soo gaadho waxna laga odhan madaxweynaha ka hadlin tallaabana aanu qaadin meeshii laga sii daayay warkiisuna ay isgaadhsiintii iyo ahayd maxay ahayd miidiyihii qaranka iyo dowladda macnaheedu waxay tahay afkii madaxweynuhu ku hadlay markay meesha qabsadeen waxaan islahay markii ay mucaaradka ahaayeen kursiga madax marayo kursi bay doonayeen nimankan waxaanay qaranka dibidaabe ku waxaase la yaaba markay kursigii waddanka u sareeyay qabsadeen waxaan kale wali ka maqan dibidaabyada kursi kama maqanayna waxay ahaayeen oo cadaatay oo wixii hore iyo waxan bay u sameeyeen ma aha kursi doon ma ahayna waxay ahaayeen nimanka meesha fadhiya hadda aarsidoon ay ahaayeen oo ay cilqabayaal yihiin ba cadaatay hadday u tuli waayeen mar hore iyo mar dambe qaranka marka cilqabnimada qaranka iyo cilqabayaashii ay cilqabaan war haddaad cid is hayseen waxaas dhinte agoomi baa hadhay iyo shacabkii marka akhir jiray u cilqaba oo la dagaalamay ka goosanaya waanu yaabanahay misi Soomaaliland ismaheeda ku dhiba iyo qarannimadeeda waxay rajaynayeen saddex sano aftuunay in mar wax dhaqaaqan haddaad maanta oo ay islahay waxba dhaqaaqayaan bilowdeen kala dirista kala saarista maxay ahayday kala fogeynta shacabka kalsoonida shacabka abuurteen ilaa inta wadin xukuumadii niyatiina oo isku kulmiyo waxaan u arkaynaa shacabku maanta inay xilka saarayeen yeeshaan qarankooda ayna kala garteen maxay ahayday cadawgooda